هاي وفي أنا waxaan ka rabaa niyow cabsalaan warka baryahan sheekooyinkeeni waa tii aan iska sheekaysan jirnay meelaha iska qaraaxaysan jirnay hadalna waxaa la yiri macnaha hadal sheeg kii wax kuugu filan sheeg bale sheeg halaga maqlo marka war wax aan la yaabaan rabaa niyow inaan kuu sheego haye fasaa horta ayaan dalkan macnaheedu muddo 32 sano haye inuu burbursanay waad ogtahay aad waxyaabaha soo kordhay marka in kasta soo kabasho aan ku jirno haye waxna waa jiraan oo dad ahaan aan u soo koraynaa dad fiirisa sax dawlad ahaan iyo kobac oo xogaa ka muuqdo aad oo fagaaraha adduunka hadeer aan macnaheedu aan u sii dhawaanayn sax hadda xataa la dhahay qaramada midoobay inaan ka mid noqono calankii waa la suruulale waa la geeyaa maasha Allah waxyaabo aan la yaabay aan arkay waa iska dhaqan hoosaadyo haye waana wax ummadda Soomaaliyeed sal iyo raad aysan kula han jirin maxaa wax saas kaaga yaabay waxaas iga yaabay waxay bal ragaa ii dambeeyay haye gabdhaha haye ayaa waxyaabo aan la yaabay aan ku arkay haye wax aan horta yaa dhinac idiin dhaafay leeyahay oo la leeyahay baraha bulshada Allah ayaa niyow soo baxay haye meelaha qaarna waaba ku fiican yihiin oo diinta xaggeeda ugu faa'iideysanaay ma badna laakiin fiirsigoodaaba yar sax gabdhaha Soomaaliyeed marka waxaan rabaa hal arrin inaan macnaheedu aan horta bal ku weydiiyo waxa keenay dhibaatada haye waxa la arki jiray gabdhaha Soomaaliyeed ayagoo markii la shukaansanayo xataa ninka shukaansanayo ka xishooda oo geed ka shishe wax ka warsada kadaal ayadoo xishoonaysa dhulka saad u fiirays walba ninka uu la warwareego oo asagana wuxuu isleeyahay moogta bal qofta si fiican iska jakin ayadana wejigeesa ay bidiidaysa ana istaag sax waxa la arki jiray gabar markii ay wax cunayso xishoota bal cid kaleba yeelkadeeda ninkeeda xataa inay ku hor cunto aan ogolayn sax oo luuq ayada la gelay hal maxaan dhaqan fiicneen dhaqan horta aad u fiican oo noocaas ayaan horta lahaan jirin sax oo diinta islaamka shariicada waafaqsan hase ahaatee hadda waxbaa soo kordhay haye waxaan baraha bulshada la leeyahay waxaad arkaysaa gabar gaalada xataa waxay sameeyaan aan samaynayn ma fahan xubnaheedii ugu mas'uulsanaa ugu qiimaha badnaa meesha laga dooranaya oo laga dooran lahaa ayay banaanka inta soo dhigtay saas u balqanaysaa ma garan subhanallah saas u balqanaysaa waa jirta arrintaas sax arrintaas noocaas horta waa la yaabay hase ahaatee maxaa looga siraad kori karaa haddaad fiiris kulle waa ila aragta adiga horta waxaa sheegtay waa jiraan koobdhe mararka qaar adiga waxaa waaye dibaaba isugu laabanaya war anaga ummadda Soomaaliyeed 100% muslim waaye saas waa waxyaalahan marka aragtana wax diin iyo dhaqan iyo shaqo ku leh ma anaga dhaqanka Soomaaliyeed asaaba dhaqan oo islaami ah oo xishoodka sida aad sheegtay marka waxaan u maleynaa iyo ama waxaan leeyahay tala aan soo jeedi lahay niyo in ilaahay loo laabto dhaqanka Soomaaliyeed soo banaay oo saliim ka ahay in lagu laabto waxyaalahan laga tooba keeno qalad waa dhaca laakiin in la saxaa fiican waa gartay ana saasaan dhihi lahay waxaan kalena dawlad talaabaha ka qaad muuqaaladan meeshaan TikTok baraha bulshada meeshaan leeyahay dalka dawladda ka jirta talaabo in laga qaado laga xirabo dawladda dalka ka jirta wixii anshaximo ay ku aragto ileen waxa anaga aan aragno kulay waa arkaan ayaguna wax talaabo rasmi ah in laga qaado si sharafki iyo gabdhaheena waxa waaye waa muraayadeena fiiri waxaad arkaysaa kuwa xijaaban oo sidii loogu talagalay oo macnaheedu diinta ay farayso maasha Allah waa asturan oo waliba aayado quraan iyo xadiis soo qaadanayo sax waa jira oo wixii wanaagsan iyo wixii kale sheegay cilmi kale maada xataa waa isku sheegaan madadaali wax jinni oo aniga aan aqoon sheerta iyo macnaheedu waxaas comment waxaas lagu raadinaa ayaga xataa macnaheedu waxay geliyaan dhibaatay geliyaan niyo waxaan kale la yaabay
daraada waxaa lay tusaa muuqaal inta la soo saaray marba mid xubnihii muhiimka ahay ee gabdhihii quruxdooda iyo oo la soo dhigay oo nina oo hadlayo wuxuu leeyahay gabdho celis ah oo muddo isbuuc oo la isticmaalay qofka u baabasmaan markaasaa waa xishooday ninka noocaas oo arrimaha noocaas ku hadlay ragga laftigooda qaar noocaasaa jira gabdho celis ah baabuur miya subxaan allah subxaan markaasaa gabdhihii cawradooda soo qaadaan xagga dambe raadadii oo lasoo waxayna ayadoo qaarka dambe quruxdii wixii oo dhan fadeexo bal ka waran waxaas waaye waxaan la yaabee gabdhahan kuwa wanaagsan xataa waxaad arkaysaa iyagoo ku dhahay gabar qaawan haddii ay isi soo dhigi lahayd commentiga iyo shaarti iyo waa la sii lahaa waxaad moodaa inay guri geliyeen shuruud ma islaamnimada shuruud ma gabdhihiina wanaagsan oo gabdhaha wanaagsan wax fiican soo dhig waxa wanaagsan soo dhig qofka shaar kuu dhaw iyo qof kalaba walaal gudbi haddaad tiraahdo qofka muslimka ah oo dhaqanka wanaagsan shuruudda hala joojiye saas waa yeel lehed saas yeel adiga aad meesha la taagan tahay laftirkaaga meesha hana kaaga muuqdo kuwaasna yay naga hadlaynin ilaahay aan ka cabsano kuweena asagu noo toosa ilaahay soo toosiye waxaad soo dhigaysiin si fiican oo toose aan u soo laaban dhaqankeena soo banaay aan u soo laaban diinteena soo banayd macaanka badneed gabdhaha iyagoo gabdhaha waxaan leeyahay gabdhaha muraayadeena tihiin waa nala dhalateen waa na dhasheen waa idin dhalna waa noo dhaxdeen haddee ceebtiinna waa ceebteenna magac soomaaliyeed xambaarsantihiin joojiya waxaan aawadaan joojiya irsaaqad meel kale ilaaha idinka siiya ilaaha idinka siiya waxaa naga joojiye foolxumadaa naga joojiye adduunkaa nala yaaba taasaan leenahay tii alla iyo tii aad aragto qaabdaro u dhaqmaysana insha allah dad fiicana ilaah naga dhigay boqolkiiba boqol muslim tuul hebel kristaan degan ma maqashaa duul kala degan ma maqash umma Soomaaliyeed oo muslim ee boqolkiiba boqol oo hadii ilaahay kor oo sunni ah alxamdulillah karaamadaas ilaahay nasi war sharafkeen iyo diinteen iyo dadnimadeen iyo Soomaalinimadeen aan ugu filan aan ilaashan gabdhaheena waxaas iska dhaafa inta qalaan ilaahay soo hanuun ilaahay nabad nasi ilaahay khayrka nasi ilaahay dadka fiican noo ilaahay dalka nabad nasi ilaahay dadkayga miday allahumma aamin ilaahay nagu salay caafimaad aamin sallallahu alayhi allahumma salli ala sayyidina muhammad haye